maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha Soomaaliya oo marti ku ahaa dood cilmiyeed uu soo agaasimay macad falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah isagoo ka jawaabaya su'aalo ay weydiinayeen dadweynihii madashaasi ka soo qayb galay oo la xiriiray arrimaha doorashooyinka wadahadallada Somaliland matalaadda gobolka Banaadir dagaalka al-shabaab iyo tacadiyada saxaafadda madaxweyne farmaajo oo la weydiiyay wadahadallada Somaliland iyo Soomaaliya ayaa sheegay in Soomaalinimadu ay tahay muqadas shacbiga waqooyina looga baahan yahay inaysan 30 sano oo kale iska lumin waxa uu xusay in xukuumaddiisu ay arrimaha doorashooyinka kaga habsaantay arrinta Somaliland annaga miyaa ka mas'uul ah in la baajiyo kulamadii aan u ballanay waxaan oran karaa labada dhinacba annaga qaybteena waa qirayaa waa ka gaabinay sababtaan uga gaabinana waxaan galnay election iyo buuq kalaan galnay siyaasadeed marka taasaa qayb ka ah inaan ka gaabinno laakiin mid ogaada hawshaan hadda ma bilaaban waxay bilaabatay 2 sano iyo bar ka hor ayay bilaabatay hawshaan laakiin waxay ahayd wax soo socday oo marna runtii la wada hadlayay marna wada hadalka uu joogsanayay anigu waa iga go'anta runtii waa iga go'an tahay ma aha wax siyaasad iyo election lagu galo waa ka weyn tahay inta caddi ay saxaafaddu kala kulantay dowladdiisa mar la weydiiyay ayuu hoosta ka xariiqay in xukuumaddiisa ay xiriir wanaagsan la samaysay warbaahinta balse ay jiraan sida uu hadalka u dhigay wariyaal aysan xirfadoodu dhammaystirnayn iyo kuwo kale oo cilaaqaad la leh dhinacyo kale oo dowladda ka soo horjeeda safa waxay tiri annagu inaan u darannahay saxaafadda arrintaas waa dacaydna laga faafiyey adeer marka xaqiiq saxa ma aha waxaan aaminsanahay dowladdan inay aad uga shaqaysay wada shaqaynta tooska ah iyo maxaan ku raahdaa wada shaqaynta suxufiyiinta waa dhab weeye dee dad waxaa jira suxufiyiin u eg laakiin aanan ahayn suxufi waxaa laga yaabaa inaysan aqoonteeda lahayn iyo khibraddeedii khaldaad badan oo aanan caadi ahayn ay iska galayaan ama waxaa laga yaabaa qaarba inay meelo kale ku xiran yihiin ay shabaab ka mid tahay oo ay shaqo ku jiraan oo ay ka shaqaynayaan sidii ay dhibaato iyo khalkhal u abuuri lahaayeen laakiin waxaan kuu sheegayaa inaan ku dadaalno wax walba oo awooddeenna ah soo dhawayntooda iyo wada shaqayntooda bahda saxaafadda taas daliil waxa u ah inaan saxiixay baarlamaankuna uu ansixiyey sharciga ugu horreeyey oo saxaafadda oo siinaya xuquuq la taaban karo suxufiyiinta iyo idaacadaha guud ahaan doodii xalay lagu casuumay madaxweyne farmaajo ayaa ku soo beegmaysa waqti ay muddo xilhayntiisa ka harsan tahay wax yar dalkana la rajaynaya inuu doorasho aado oo isbeddel la wajaho